casharkeena koob iyo soddonaad waxa uu mar labaad ku saabsan yahay sidee markaasi alaab aan dalbanay oo noo timaama soo iibsanay systemka soo gashan karnaa siiba point hostelka oo ah goobta ay iibka iyo soo gelinta alaabtu iyo sidoo kale lacag qabashadu waa ka dhici doonto iyo deeminta dadka lacagaha lagu yeelanayo. haddaba inteena guda galay casharkeena koob iyo soddonaad fadlan subscribe waa noo muhiim. aan guda galno casharkeena koob iyo soddonaad. casharkeena koob iyo soddonaad sida tan markuu nagu soo muuqdo waxaynu tagi doonaa meesha ay ku qoran tahay ama software-ka ama programka iibka meherada markaasi alaab ayaa noo timi maanta. halkaas ayaan tagi doonaa sida hore u sheegnay ku qoran tahay receiving vouchers voucheradii ama waraaqihii alaabta ugu qornay ee soo gaaray. click button hal mar marka gujiso waxaad ku bilaabi doontaa shayga markaasi ku yimi haduu yahay shay hore oo hore kuugu iman jiray sida tan ayaad soo dooran doontaa sida saliid halkan ka muuqata. saliid click marka saa siiso ee sida taa u joogtay saliidaasi waxa ku soo dhigmi doona cabirkeeda inta ku jirta wixii halkan baad ka arki doontaa. haddaba sida marka ay saliid ku tahay unitka ayaa dooran doontaa waa marka shaygu ka dhamaado kale sidan kale unitka marka click siisid measurementyada ku soo bixi doona measurement 1 oo ah waxa loo yaqaano pieces oo ah hal shay iyo kartoon oo ah tiro markaas isku lifaaqan. kartoon baan click siin doonaa saa click marka siino kartoonku intaas ayuu markaasi cost voucherkiisu ahaa halkan ayaad click siin doontaa. click marka siisid waxaad leedahay waxa yimi tiradan 7 markaasi kartoon ayaa yimi oo ah 4485.6 waaye sida tan marka ay ugu timi cideebay kaaga timi cideega timi waa cidii markii hore aan alaabta ka dalbaday ayaan oran karaa oo ah waxa loo yaqaan deeq daahir company laakiin hadda waxaan leeyahay aways company ayay ga timi. aways company click marka san baan ku soo dhufanaya daaqada yar hoose markay soo baxdo halka daaqada yar ba ka soo bixi doonta ay ku qorantay aways invoice bill due. click marka siisid daaqada yar tigta ayaad ka qaaday halka ku qorantay mark this voucher as already paid tigta ka qaaday. tigta marka ka qaaday halkan bad iman invoice-ka uu kugu soo jaray ayaad qorin inv number 1711 oo kale tusaale date ka dooran aways alaabtiisa aways company ku soo gaadhay 11 bisha sideedaad 11 bisha sideed 2023 ayay soo gaadhay. click hayaasin sata marka aad u joogtid hadda waxa ku qoran invoice-kii xilliga ay ku soo gaadhay company-ga kaaga timi tirada CRT-yada ama karatoonta inta hayso inay tahay 70 CRT ay ku dooran tahay. waayahay sida marka marayso waxa leedahay save and print or haddii aad printahayna save on le marka saa tiraahdid hadda waxa noo yimi adayna ku noqono haddaan ku noqon history receive-ka waxa noo yimi history receive baan ku noqonaynaa. history receive marka click soo ugu siiso waxaad aragtaa aways in alaabtaas kaaga aways alaabtiisa wata aways alaabtaas nooga timi waxa weeye tirahan waxa weeye waxa ku jira kartoonka intaas totalka 70 kartoon baa noo yimi totalkiisu waa intaas saas ayaa aways invoice-kiisu waa kan aways marka saas ayay kaga dhan tahay. tirada marka waa marka alaab ay ku timaada soo gashanaysid. casharkeenan koobanna halkaas nagu jooga. wassalaamu calaykum waraxmatullaah.